waxay kulanti wanaagsan saaxiibaal soo dhawaada waxaan rabnaa inaan la wadaagno xogta iyo wararkii ugu dambeeyay iyo halka ay barayso doorashada ka socota deegaanada Somaliland iyo waliba sidoo kale musharaxiinta ugu cadcad iyo taageerayaasha ugu badnaa ee abid ee soo guuxdaafinaya goobaha doorashooyinka iyo qabanqaabadii ugu dambeeyay ee ka socota deegaanadaasi ee gobolada waqooyi ee Somaliland iyadoo maalinta berri ah wixii ka dambeeya ay yeelan doonto madaxweyne markaasi hogaamin doona 5 sano ee soo aadan haddaba se waa kuma madaxweynahaasi ayay bulshadu aad u taageerayaan xogtaasi ayaa rabaa in halka kugu la wadaago haddii aad tahay ama markaasi ka soo jeedo deegaanadaasi ee gobolada waqooyi muuqaalka fadlan waxa waajib ku ah inaad share gareedo meel dheer aad gaarsiiso si markaasi codka bulshada dhiibanaya qofka ay taageerayaan ay halkan ugu la socdaan maasanidin soo dhawaad saaxiibaal muuqaalka noo share garee meel dheer nala gaarsi aragtina qaybta hoose faalada commentiga nagu wadaaga bogana haddii ay tahay markii ugu horeeyay ee uu ku soo gaaro fadlan ka mid noqo saaxiibada sida maalinlaha ee wararkeena halkan ugu la socda misane ku soo biiray waayahay soo dhawaad gobolada waqooyi ee Somaliland maalinta berri toole ah waxa markaasi loo dareerayaa goobaha doorashooyinka ama cod bixinta dadweynaha halkaasi oo ka qabsoomi doonto doorashadii ee markaasi ugu adkeyd ee la dhihi karo doorasho qof iyo cod ah ee ka dhacda deegaanadaasi gobolada waqooyi ee Somaliland iyadoo oo markaasi horay ay sidan oo kale ugu dhici jirtay Somaliland doorasho qof iyo cod ah laakiin doorashadan haddan waa ay ka duwan tahay doorashooyinkii hore ee ka dhacayay deegaanadaasi ama gobolada waqooyi ee Somaliland iyadoo hadda la arkayo inta aan la gaarin ka hor in si weyn bulshada ku dhaqan deegaanadaasi ay si weyn markaasi isku qaban qaabinayaan ama markaasi ugu diyaarsan yihiin shakhsiga markaasi hogaamin lahaa 4 ama 5 sano ee soo aadan doorashada halkaasi waxaana sidoo kale ku tartamaya 3 urur oo markaasi mid walba musharax madaxweyne u taagan ururka wadani Cabdiraxmaan Cirro ayaa si weyn markaasi ugu taagan halka Kahna Muuse Biixi oo hadda ah madaxweynaha markaasi xilka haya ee 5 sano ee la soo dhaafay si weyn halkaasi ugu arriminayay halka markaasi xisbiga u cidna isagana markaasi uu hogaaminayo Faysal Cali Waraabe oo ah isna musharax madaxweyne saddexdan musharax ayaana markaasi si weyn ugu loolamaya jagada madaxtinimada ee Somaliland iyadoo markaasi bulshada ay u hamuun qabaan sida laga dheehan karo aragtida ku aadan iyo waliba sidoo kale sawirrada iyo muuqaalada kala duwan ee ka soo baxaya Somaliland iyo goboladaasiba inay markaasi bulshadu ay si weyn ugu durbaantumayaan xisbiga wadani oo ah markaasi musharaxa ugu cadcad ee la dhihi karo wadani ee ah markaasi Cabdiraxmaan Cirro halka xisbiga kale ee xiga isna markaasi ugu shacbiyada badan ee markaasi wadani aanba ka dhicin isna markaasi lagu tilmaamo mise u muuqda xisbiga ka oo ah markaasi musharaxna uu ka yahay Muuse Biixi Cabdi madaxweynaha hadda taladaasi haya halka xisbiga u cidna markaasi isna uu ku daba jiro ama markaasi loolanka qayb uu ka yahay ee markaasi doorashada ee madaxtinimada ugu sharaxdan ama ugu socda isagana Faysal Cali Waraabe iyadoo bulshada aragtiyo kala duwan ay ka dhiibanayaan doorashada maalinta berri ah lagu kala bixi doono lagu kala adkaan doono gobolada waqooyi ee Somaliland maalinta berri ah wixii ka dambeeya ama markaasi maalmaha kale ee ka xigaba ay si weyn u yeelan doonto madaxweyne hogaamin doona 5 sano ee soo aadan haddaba adiguse yaad u rajaynaysaa in uu hogaamiyo misana hogaamiyo uu ka noqdo 5 sano ee soo aadan Somaliland aragtida qaybta hoose faaladeeda nagu wadaag kartaa